aanu ku bilownay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka codsaday in uu cafiyo isaga iyo dadkii la eedeysnaa. Cabdi Maxamuud Cumar oo maanta markii saddexaad la keenay maxkamadda ayaa waxa uu sheegay in muddo 12 sano uu dalkiisa u soo shaqeynayay in la cafiyana uu mudan yahay. dhageysiga dacwadiisa ayaa dib loo dhigay muddo kale. Haddaba faafahinta warkan ayaa waxaan goor dhaweyd weydiiyay wariyaha magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam. عبد الفتاح أو مدحين هذا الدولتين كصومالي عبد محمود عمر يصدق ذي حبنود إلى سعودي أيا ساكل لكاني محكمة دوانا مركي صدحات إلى كانوا أفرتن يلاو مع المتكذب أدنا وحي حير إلى أن تعطي إن طبعا مع الموضوع كالسيو أساسا وحيسكون قندون تاكنتن يلاو مع الموضوع هذا بقى عبشوين هراء ومدحينه يحبناها الله سعود بقى هراء عبليين بيجري إن أن قرح هذا إن بدلنا تسن إن أفصومالي قدرت كوها الله إن أفحمارك قرنين أهل كودا مركز في ميدان قصب لقدروا إن أفحمارك هذان أما عين الله هذين يجوا يمد إسكتجان مركز تنا صدق الجار وكعبانين هذا كسوريه ما أنت محكمة فدية أي حير لانتي إن بدلنا هذا وحكوا يدي صدق الجار وهراء أيان إنساني فرصة أدنى فرصة لبعض بان إنساني مركز واحد مثلا بقول مركز هذا النقطة مادان يتوان كبريد ماتو وين هذا مادان بقول المخراتية دي هي الدنبية ضد كان أتوقع بهيسان واحد ركتان بقولينان أتصنع تسكت جيتان بعد ركتان إرجاس واستعماره أو كسوري وحكوا يدي المدحين هنا مركز وحول مادام إسعافس أن كجرنا أو حل إسعافس والرزوزارة واللي بعرف تسكت ميد لم يطمن سنة وضع كل شقينا وحنا كعسنا نقول الرزوزارة أو فرنت أن سنة تاد محكمة الكوتين إن عفس نلاف ديو هذا بعد أنتو ساسة كل ما تي تون بركة جبنا وانسودنا بروح اللي مدان حير لا أنتو يدم بقلوس وحبنا أن يولي المدحين هنا دلوتين كصومالي عبد محمد عمر. Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayuu kaasi ah oo faafahinta warkaasi goor dhaweyd siinayay halkaad kala socotaan waa BBC Facebook ay dhageystayaal badan raayigooda kaga soo dhiibteen waa ay ku kala raay duwan yihiin hadii aan soo qabto qaar ka mid ah dhageystayaashaasi Maxamed Awil Ahmed oo boosas ka soo qoray waxa uu leeyahay hadalka madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar waa mid aan waxba soo kordhinayn waqti xaadir kan lagu jiro waayo waxa uu geystay buu leeyahay godob badan oo uu ka galay dadka deegaankaasi waxaana cafin kara shacabka deegaanka uu dhibta u geystay waa sida uu qabay